عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا قالقا كسو دوادا برنامج كيني أما كورسيني كمبيوتر بيسيك ما توحانو قادن دونا هادو رابرالي كنغضو عشر كيني كواد oo ku saabsanaan doona haduu rabbi raali ka noqdo introduction ku saabsan computer basic course-dan waa course aad qaali ah runtii loo baahan yahayna in qof walba ka faa'iideysto sababtan ku leeyahayna waxa weeyaan computerku maanta waxa uu noqday mother of the world hooyada adduunka sababtoo ah wax kasta field kasta wuxuu soo galayaa computer ama technology siday ahaataba marka koorsadan maanta waxa aynu ka bilaabi doonaa introduction ku saabsan computerka ku soo dhawaad computerku muxuu yahay qodobada aanu isla eegi doono waxa kamida what is the computerku waxa uu yahay part of computer qaybaha uu ka kooban yahay computer component character of computer astaamaha uu computerku leeyahay iyo taariikhda uu computerku leeyahay history of computer sidoo kale waxaan isla arki doonaa typeska uu leeyahay computerku ugu dambeynna waxaanu diirada saaraynaa typeska ay leeyihiin software iyo hardware oo labaduba kamid yihiin partiyada computerka muhiimka ah. What is the computer? Computer is electronic device waa qalab electroniga using to process data kaasoo loo isticmaalo in lagu process gareeyo data. Processing micnaheedu waxa weeyaan xog data in loogu bedelo information. Another device hadaynu eegno computer can converting computerku wuxuu awoodaa inuu bedelo datada into information inuu xog u bedelo taasoo is useful people informationka datada marka la bedelo waxay noqonaysaa information kaasoo ay dadku si useful ay u isticmaali karaan. Definition kale hadaynu eegno is artificial intelligence baynu oran karnaa device weeyaan waa device aqli la yiraahdo aqli gacan ku samaysa weeyaan sababtoo ah waxaanu oran karnaa waxa uu leeyahay speed uu ku awoodo inuu ku shaqeeyo iyo speed uu ku storage kareeyo xog so taas waxay noqon kartaa artificial inuu yahay sababtoo ah dadku waxa ay leeyihiin maskax ay ku shaqeeyaan oo ay 12 saac oo maalintii ay ku shaqeynayaan waxaana ku xifdinayaan oo maskaxdooda wax gelinayaan marka artificial intelligence waa oran karnaa wuxuu sidoo kale oran karnaa high speed ayuu leeyahay uu ku bedelo data ugu bedelo information. hadaynu isla eegno definitionka ugu dambeeya another definition is device weeyaan contain ka kooban software and hardware using to tasking people easy computer kaasoo ay dadku u isticmaalaan sidii ay waxa weeyaan datado ay xog ugu shaqeysan lahaayeen si fudud ama using to tasking people easy in kaasoo loo isticmaalo in shaqo lagu qabto si fudud. Part of computer waxa kamida software ba kamida partiskiisa software waa programska aanu isticmaalno haduu yahay Windows iyo haduu yahay application Word PowerPoint kana ayaa kamida is the part weeyaan computer we see but never touch waynu arki karnaa laakiin samaynu taaban karno softwareka definition kaas ayuu leeyahay hardware definition ka uu leeyahay hardware waa computerka sababtoo ah waxa weeyaan waa keyboardki monitorki ani qalab kasta ama any device kasta oo aad arki kartid taaban kartid the part of computer we see and touch ana arki karnana aynuna taaban karno weeyaan partiga ku xiga waxa weey waa datadu waxa weeyaan waa information waa xog
data waxaan oran karnaa is raw facting waa xog qaydina when information marka information tahayna arrangement data waa data la habeeyey so information iyo data waa kaas differentiga u dhaxeeya information waxa weeyaan arrangement dataduna waxa weeyaan waa raw facting waa xog qaydina oo aan weli bislan yacni users ba ku soo haray users waa people waa dadkii waa people how using computer kuwaasoo isticmaalaya computerka communityga uu ka kooban yahay computerka maxay tahay every computer in the world have component wuxuu leeyahay component waxa ka mid ah monitor monitor speaker RAM ba kamida mouse ka kamida CD ROM ka drive ka kamida waxa kamida microphone ka hard drive ka ah ko wax ku kaydinaya portiski ba kamida oo USB ga aha meesha flash laga gelinayo mouse laga gelinayo waxa soo dhan Spanish border ka kamida printer ka kamida oo ah inuu data ku daabaco CPU da kamida modem ka kamida isaguna network iyo waxaas la xiriira hadaba character-ka uu leeyahay computer kastaba wuxuu leeyahay character company soo sameysay magac lagu soo sameeyay version uu leeyahay iyo IP address u gaara computer kasta wuxuu leeyahay laba IP address taas waxa weeyaan waa special character oo computer kasta computer kale kaga duwan yahay laakiin se waxa jira character ay isku wada mid yihiin oo laga duulayo wax kamid ah speedska waxaan ognahay computer walba can work in very fast inuu aad u dheereeyo aad shaqadiisu fast tahay it taken wuxuu qaataa only few seconds calculating inuu wax xisaabiyo wax yar bay ku qaadataa accuracy ba kamida astaanta labaad oo ah saxsanaantiisa the degree of accuracy computer is very high performance aad ayay u shaqeysaa wax weeyaan performance-geedu aad ayuu high u yahay marka laga hadlayo accuracy-ga of computer-ka diligence macnaheedu waxa weeyaan madaalo the computer is free from training free ayuu ka yahay oo ma badaalo training ma balaha when performance marka uu shaqeynayo ma badaalayo mooyaane inuu mar charger ka dhaco waxyaalo kale cilad kale environment problem uu ku yimaado kale versatility waxa weeyaan using different tasks in the same time versatility waxa weeyaan adoo computerkaaga intaasoo program ay ku kaxsan yihiin word ku kaxsan yahay waxa la yiraahdo ama aad isticmaalaysid Premiere Pro Photoshop iyo wax kasta oo waxa weeyaan kugu jira ay dhowr xabo ku kaxsan yihiin oo marba mid aad ku dhufanaysid oo isticmaalaysid marka waa different tasking in the same time inuu qabto ba computerka loo isticmaalaa characterkiisana kamid ah power of remainder waxaan ognahay has the computer power of remembering any amount of data or information wuxuu leeyahay awood uu ku xasuusto data iyo information kasta intay la eg yihiin sidoo kale wuxuu leeyahay storage wax la yiraahdo kaydintiisu aad ayay u sareysaa to store more data any types laakiin se labadan character ee ugu dambeeya ay ah no IQ iyo no feeling waa labada character oo aanu computerku ku noqon karin artificial intelligence waxa aanu ugu noqon karin waxa weeyaan no IQ horta ma laha wax maskax is damping machine computer is damping machine ayaa la dhahaa waxa weeyaan waa damping machine waa daawac weeyaan and never work without user mana shaqeyn karo users isticmaale la'aantii ma shaqeyn karo marka kow horta taas waxa weeye waa caqabada koowaad aanu kuba noqon karin artificial intelligence no feeling mana waxa weeyaan noqon mana dareemo no feeling wax dareena ma laha it does not have feeling emotion ma dareemayo dhaqdhaqaaq iyo wax saasa mana dhaqdhaqaaqi karo testing iyo dhadhan labadaba it does not distinction between users mana waxa weeyaan kala saari karo userska isticmaalayaasha taasna waa caqabad isaga uu kaga gaabiyay ama la oran karo waa caqabad aanu ku gaari karayn artificial intelligence waa yahay wuxuu ka yahay storage waa ka yahay diligence waa ka yahay accuracy waa ka yahay speed waa ka yahay inta kale waa ka yahay laakiin labadan ayaa waxay yihiin labada ugu muhiimsan ee lagu qiimeynayo
history uu soo maray computerku wuxuu soo maray ku dhawaad 5 generator kuwaasoo xiliyo kala duwan qaatay adigu waxay hadda ku dhowdahay nus qarni meelahaas bishii waaba ka yartahay adigu waa nus qarni xogaa dhiman first generator wuxuu ahaa 1964 ilaa 1954 this generator called waxa la oran jiray ENIAC oo loo soo gaabiyay electronic numerical interchange and the calculator it was first computer waa computerkii ugu horeeyay building oo waxa weeyaan la build gareeyo kan designing lama oranayo sababtan designing loo oranayo waxa weeyaan isaga waaba la dhisay sidii guri ama dabaq oo kale oo loo dhisay sababtoo ah wuxuu ahaa very large 1946 bahayd University jaamacadda of Pennsylvania oo USA ku taala by John Elarin and John Mochin labada nin ayaa waxa weeyaan dhisay feetkiisa wuxuu gaarayay 30 oo lagu dhuftay konton waad aragtaa marka inta uu waxa weeyaan leekanka computerka weightkiisa ka sii daran oo 30 tons baa lagu sheegay oo 30 ton inuu yahay contain sidoo kale wuxuu ka koobnaa 18 kun oo vacuum tube waxa weeyaan bilacadaha waaweyn ma loo isticmaalaa tubes waaweyn kaasoo kale ayuu ahaa laakiinse oo waxa weeyaan uu dhex marayaan data iyo xog sida hadda networkska oo kale fiilooyinka loo isticmaalo oo kale oo qaar waaweyn ka yihiin kuwaas kuwa kasi waaweyn bay ahaan jireen sidoo kale wuxuu lahaa 70 kun oo registers 70 kun oo waxa weeyaan xog ayaa lagu register gareeyay ama ku register garsana 7 sidoo kale wuxuu lahaa 10 kun oo capacitor ah iyo requirement kale oo iyaguna aad u baaxad weyn sidoo kale waxa uu lahaa ama uu u baahnaa 150 watts oo waxa weeyaan power electronic but laakiinse performance-ga uu lahaa is very low ayuu ahaa si fiican ma shaqeynay secondary generator waxa 1955 ilaa 1963 around 1955 ayaa waxa weeyaan ayuu ahaa it was developed then the first generator waxa weeyaan waa generatorka ka horeeyay oo la waxa weeyaan update gareeyo ama develop lagu sameeyo it was CPU memory program language so kan wuxuu ka dheeraaday program language ayuu lahaa wuxuu lahaa output input unities uu lahaa oo lagu wada bahalkeeyay unities were developed kuwaasoo lagu develop gareeyay were developed the program language such as COBOL and format ba lagu develop gareeyay program languageskiisa third generator ayaa haray isaguna waxa ayaa isaguna jira oo ahaa 1964 ilaa 1974 introduce waxa la soo bandhigay 1964 they use waxa la isticmaal jiray instruction circuit kaasoo ahaa isagoo very register they have the high level language such as basic the high level language waxa weeyaan CPU da waxay leedahay laba language oo ah machine language iyo high level language marka waa tay humanka ama dadku isticmaalaan oo ah alifbeetada kale waxa kamid ah symboliska marka basically wuxuu ahaa binary all purpose symbols instruction codes loo isticmaalayo programmadan COBOL iyo formatka iyo ayaa lagu sameyn jiray marka high level language buu lahaa generator 30 it is small case aad buu yahaa low cost lacagtiisuna aad bay yaray large memory aad weyn buu laakiinse lahaa process speed very high ayuu ahaa waxa haray first generation isagu waxa ku 1955 ilaa present ilaa hadda waa isticmaala the present day computer that you see today the present maanta la joogo
computers computerada that you see today aad arkaysid maanta are four generator waa four waa generatorka afraad computer that started kuwa kaasoo la bilaabay around intii lagu guda jiray 1975 very high speed ayuu leeyahay and very small in size kiisun aad u yahay also is very large storage kiisun aad ayuu weeyahay 5 generator ayaa isaguna jiraya oo la leeyahay waa jirana waana soo socdaa future-ka ayaa la rajeynayaa isagu waxa weeyaan future so it is so very high speed waa inaba caadi maaha very high performance kiisuna aad ayuu u sareeyaa in all fields around the world wuxuuna ka shaqeyn karaa ama ka shaqeynaya hadduu rabbi raali ka noqdo adduunka oo dhan fieldiyadiisa kala duwan it will use in searching zone in medicine waxaa loo isticmaali doonaa qaliimada degdega ah ee medicineka qaliimaha waxaa jira hadda qaata ilaa iyo 2 week oo kale dhowr saacadood waxaas waxay kusoo gabagabeynayaan wax muddo yar oo aad u yar aan sidoo kale wuxuu noqonayaa computerkaas ama hadduu soo bax generatorka part of life nolosha qayb kamida oo waxba lagu dhisiyaa guryo iyo dabaqyo types of computerka wuxuu leeyahay types kala duwan waxa kamida microcomputerska isla west ending of computer range weeyaan internal speech and speech capacity baa loo bahalkeeyay it is the CPU first CPU diisa marka koowaad waxa loo bilgareeyay i-bit dan kadibna waxa loo bilgareeyay 18 ilaa 32 markii dambe example waxa kugu filan microcomputers IMB iyo PC oo iyagu waa desktop microcomputers kan mini computer ayaa jira is designed to supporting waxa loo design gareeyay inay caawiyaan more than one personal oo kale qof hal qof ka badan inay caawiyaan at the time hal waqti oo kale it large storage area and operators at high speed also it's using multi-user system waxa loo isticmaalaa multi-user dadka aad ka fara badan in which various users can work in at some time usero kala duwan ayaa hal mar ku shaqeyn kara mainframe is type of computer weeyaan using organization waxa waa isticmaalo organizationada waaweyn sida Facebook oo kale marka storage-ka laga hadlayo it's a large storage and high speed performance wuxuu leeyahay meel wax lagu kaydsado aad u weyn iyo speed aad u sareeya performance-giisa super computer oo ah computerka ugu weyn hadda aynu joognaa it is type of computer weeyaan it's large than mainframe aad ayuu uga weyn yahay mainframe speedkiisuna so very fast weeyaan speed performance shaqayntiisu so super computer means waxaan oran karnaa waa computerada ugu casriyaysan oo loo isticmaalo waxaan la yiraahdo marka la aadayo dayax gacmeedka iyo meelahaas oo dhan searching-ka iyo xogta in lagu ururiyo oo xog aad u tiro badan lagu ururiyo ayaa loo isticmaalaa so is very large types of software iyo hardware waxa weeyaan waa qaybtii ugu dambeysay introduction kan types of software ku waxa weeyaan waa labo application software iyo system software application software is tells wuxuu ka hadlaa computer how to compilation text the user requirement waxa uu sheegaa computerka applicationsku sidii uu computerku u dhameystiri lahaa ama ugu guuleysan lahaa taskis shaqada the user's requirement uu userku ama isticmaaluhu doonayo waxa kamida applications micro office-ka wordska excelka powerpoint-ga iyo any application kasta oo aad ku isticmaalaysid haday noqoto Adobe iyo wixii kale lamida sidoo kale waxa lamida system software ayaa isaguna jira is operating software that helping the computer performance specific function and operating software kan wuxuu caawiyaa computerka performance specific function isagoo ka caawiya specific function ka oo kale waxa kamid ah Windows-ka Linux-ka Unix-ka Macintosh-ka oo isaguna laga isticmaalo Mareykanka iyo wadamada qaar kood types of hardware ku laba qaybsamaya input iyo output input waxa weeyaan the part of hardware inside devices
of computer such as mouse, keyboard, micro. waxa weeye waa qayb ka mid ah hardware-ka ee gudaha device-ka wax laga gelinayo. Output device is a part of hardware outside devices of computer such as monitor, printer, speaker iyo wixii kale oo la mid ah. marka sidaas ayay ku kala duwan yihiin input iyo output. so intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi